Markii uu Mark Zuckerberg soo gaaray magaalada Palo Alto 4 sano ka hor, ma uusan haysan gaari gaarsiiya gurigiisa ama shaqo uu qabto si uu u helo wax uu ku noolaado. Si aanu sawirkani inoogu noqon mid mala awaal ah, Mark Zuckerberg maanta waxa uu ka mid yahay dadka hoggaanka u ah bogga dadweynaha ku kulmaan ee facebook.com oo ku aanbaxay in ay dadka ku wada xiriiraan. Waxaanu diiday gacan kasta oo u soo bandhigta inay ku maalgashato bilaayin dollar. Ma rumaysan kartaa arrinta? 3 sano ee ugu dambeeyay bogga Facebook oo aan haysan xitaa guri kira oo loogu soo hagaago ayaa noqday mid ay soo dhaweeyaan oo ay ka helaan xafiisyada ugu waaweyn adduunka. Nolosha wiilkani waxay u eg tahay sidii sheeko filim oo kale ah. Tiknoolajiyada noocan ahna wuxuu bilaabay intii uu ku jiray waxbarashadiisa jaamacadeed. Qol ka mid ah dhismaha jaamacadii uu dhiganayay ee Harvard University ayuu ka bilaabay howlgalkiisa. Fikir uu doonayay inuu bulshada oo dhan wada gaaro, taasoo soo jiidatay indhaha dad badan. Ardayda jaamacaddu waxay bilaabeen inay si joogto ah ugu soo dhawaadaan qolkiisa, iyaga oo doonayay in ay shakhsi ahaan ogaadaan waxa uu ku mashquulsan yahay. Mark waxaa kaga soo baxay ardaydii qolkii uu ku jiray Mark fikir ka dhigay Superman oo si kooban adduunka u gaaray. Bilowgii fikradan waxa uu ka bilaabay bog ay ku wada xiriiraan ardayda jaamacadda oo kaliya, waxaana loo bixiyay networking site. Ha yeeshee iminka dadka ku wada xiriira waxay ka badan yihiin 50 milyan oo qof, oo ay ku jiraan shaqaalaha, lamaanaha, dowladaha iyo shirkadaha waaweyn. Maalin kasta waxaa soo booqda boggan dad aad uga tiro badan dadka sida joogtada ah u isticmaala. Mid ka mid ah shirkadaha qiimeeya dhaqdhaqaaqa internetka ayaa ku tilmaamay Facebook inuu yahay bogga 6aad ee ugu isticmaalista badan Mareykanka dhexdiisa, taasoo micnaheedu yahay in 1% waqtiga internetka lagu bixiyo la dul fadhiyo Facebook. Sidoo kale shirkadaasi waxay tilmaamtay inuu Facebook ku jiro kaalinta koowaad marka la eego dhinaca isku gudbinta sawirada. Maalin kastana waxaa la isku weydaarsadaa in ka badan 60 milyan oo sawir. Facebook wuxuu tartan xawli ah kula jira barta macluumaadka laga raadiyo ee Google, Flickr iyo shirkadaha kale ee hormuudka u ah tiknoolajiyada ee ay daahfuraan dhalinyaro da'doodu aad u yar tahay. Dadka qiimeeya arrimaha dhaqaalaha waxay tilmaameen talaabooyinka uu ku socdo bogga Facebook in sanad kasta macaashkiisu noqonayo 100 milyan oo dollar, taasoo soo jiidatay indhaha suuqyada. Daahfuraha shirkadda Facebook waxaa ka hor yimi tartan iyo loolan adag oo uu adduunka la galay, taasoo dadka dhaliila ku tilmaameen inuu suuqa ku soo galay si aan sharci ahayn. Waxaase lagu tilmaamay inuu weligiiba ahaa qof keligii socod ah. Mark wuxuu ku barbaaray xaafadda ay degaan dadka hantida badan ee Dobbs Fabric oo ku taal magaalada New York. Waqtigii uu yaraana wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro kombiyuutarada gurigooda yaala, taasoo u sahashay inuu si fiican u barto barnaamijyada uu ka kooban yahay kombiyuutarku. Isaga iyo nin ay saaxiibo ahaayeen ayaa soo saaray barnaamij qayb ka ahaa MP3 oo ay u bixiyeen Winamp, oo ay ugu talagaleen inuu sahlo dhageysiga muusiga. Arrintan waxay soo jiidatay oo ay muhiimad weyn u noqotay shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin shirkadda Microsoft iyo American Online oo u soo bandhigay in barnaamijka ay ku darsadaan telefoonada gacanta ay soo saaraan. Bogga facebook.com wuxuu hawada si rasmi ah u galay February 4 sanadkii 2004, kaasoo ay booqdeen kala bar ardaydii jaamacadda dhiganaysay. Muddo 2 toddobaad gudahoodna waxaa booqday 3 meelood oo 2 meel. Muddo kadib waxaa ku soo biiray saaxiibadii Dustin Moskovitz iyo Charles Hughes oo ka caawiyay inay ku kordhiyaan qalab si fiican ugu shaqeeya oo u fududeynaya dadweynaha adeegsanaya booqashada boggan. Ardaydii dhiganaysay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Harvard waxay jeclaadeen inay ku soo bandhigaan boggan taariikho kooban oo ay leeyihiin iyo sawiradooda. Arrintaas oo dhiirigelisay in ardaydii jaamacadaha kale ay ku soo biiraan, sida ardaydii jaamacadda Stanford. Markii la gaaray bishii May, dadka adeegsaday boggan waxay ka koobnaayeen 30 jaamacadood. Faa'iidada kaliya ee ka soo gali jirtay mulkiilaha boggan
waxay ahayd markii lagu baahiyo ogeysiisyada iyo howlgallada ay leeyihiin ardayda kala duwan ee dhigata jaamacadahaas. Lacagta ka soo gali jirtay xayeysiisyadaas waxaa lagu qiyaasay $10,000. Markii uu arkay Mark Zuckerberg guusha uu gaaray, hadaladii uu yiri waxa ka mid ahaa: "Waxaan rajaynayaa inaan safar ku tago California si aan fasaxayga halkaas ugu soo qaato oo aan u dabaaldego guusha la yaabka ah." Dabayaaqadii sanadkii labaad ee jaamacadda oo ah sanadkii uu daboolka ka qaaday bogga facebook.com, wuxuu go'aansaday inuu joojiyo sii wadida jaamacadda, isaga oo doorbiday inuu howlgal weyn ku sameeyo ballaarinta boggiisa. Waxaanu tagay magaalada Palo Alto isaga oo ay la socdaan labadiisii saaxiib, waxaanay kireysteen dhisme iyaga iyo Sean Parker oo ah ninka aas-aasay bogga lagu kaydiyo faylasha ee sharing service Napster. Dhismahaasi wuxuu u dhowaa jaamacadda Stanford oo dhalinyarada aadka u isticmaashay Facebook ay ku tilmaameen inay ahayd meeshii digaagadu ay dhigtay beedka dahabka ah. Bishii July sanadkii 2004, shirkadda iyo bogga Connect waxay dacwad Kanada ku soo oogeen Mark Zuckerberg oo ay ku eedeeyeen inuu ka xaday dhammaan howlwadeenadii khubarada ahayd ee shirkadooda si uu ugu horumariyo boggiisa gaarka ah. Ha yeeshee ilaa iminka dacwadaas si rasmi ah looma qaadin. Mark Zuckerberg wuxuu eedeynaa la mid ah u soo jeeday shirkadda Connect oo uu ku tilmaamay inay ka xadeen xeerarkii gaarka ah ee boggiisa lahaa oo ay ku horumariyeen boggooda iyo arrimo gaar ah oo ay leeyihiin. Sidaa darteed dacwadaasi waa mid ilaa iyo waqtigan ka dhaxaysa Facebook iyo Connect. Maalgelintii ugu horeysay ee lagu sameeyo Facebook waxaa bixiyay aasaasaha shirkadda PayPal ee Peter Thiel, isaga oo bixiyay lacag xaddigeedu dhan yahay $500,000. Sanadkii 2005, bogga Facebook wuxuu soo jiitay indhaha shirkado badan oo ay ka mid tahay shirkadda Accel Partners oo si rasmi ah ugu maalgelisay $127 milyan. Sanadkii 2006, Facebook wuxuu u oggolaaday ardayda jaamacadaha inay ku soo daraan saaxiibadooda kale. Bil kadibna waxaa soo baxday warar tilmaamayay in bogga Facebook ay iibsanayaan shirkadaha waaweyn ee adduunka. Ha yeeshee isla bishaas bogga Facebook waxa uu dib u habeyn weyn ku sameeyay qaab dhismeedkii uu u samaysnaa oo ay ku soo kordhiyeen horumar aad u ballaaran. Sanadkii 2007 ayaa mar kale lagu sameeyay Facebook horumar ballaaran oo ay ka yaabisay shirkadaha waaweyn. Shirkadaha qaybta ka iibsadayna waxaa ka mid ah shirkadda Microsoft oo bogga ay ku leedahay siisatay $240 milyan. Waqti xaadirkan bogga Facebook waxa uu la circirayaa xayeysiisyada iyo idaahyada shirkadaha ugu waaweyn adduunka oo bil kasta siiya malaayiin dollar. Haddaba daawadayaal, tiknoolajiyada caalamka waxa ay maalinba maalinta ka dambeysa noqonaysaa si horumaraysa oo noqonaysa mid caalamka oo dhan hoggaanka u haysa. Haddaba ma tahay fursadda kaliya ee bannaan maanta ee ah in la barto tiknoolajiyada ama kuliyadaha IT-ga amaba computer science-ka? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, ku dhaqaaq go'aankaada. Daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa noloshii ku saabsaneed wiilkii yaraa ee guuleystay. Waa Mark Zuckerberg. Intaan mawduucan caynkan oo kale ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaanaha.